wasiirkii hore warshadaha Soomaaliland Axmed Cali Ubaxle ayaa u mahadnaqay shacbi weynaha reer Soomaaliland sidii wanaagsaneed ay ku codeeyeen isla markaasina indhaha caalamka u soo jiidatay. Axmed Cali Ubaxle ayaa sidoo kale ammaan kala dul dhacay ciidamada ammaanka qaranka Soomaaliland sidii ay ugu heelan yihiin sugidda amniga iyo komishanka doorashooyinka qaranka oo uu ku amaanay sida hufnaantu ka muuqato ee ay u gudanayaan waajibaadkooda. Dhammaan ummadda reer Soomaaliland ciidamada qaranka komishanka qaranka xisbiyadii tartamayay saddexda xisbi kulmiye oo ciidiyo wadani waxaan ku hambalyeeynaa kuna tahniyadeynayaa ilaahayna uga mahadnaqayaa sida quruxda badan sharafta badan qiimaha badan madaxtinimada iyo caqliga wanaagsan ku jiro ee aynu uga shaqeynay doorashadii iyadoo inoogu dhacday si nabadgelyo ah iyadoo inoogu dhacday si wanaagsan oo sharaf leh waxaan u malaynayaa oo aan hubaa u malayn maayo waxaan hubaa inaynu guuleysanay oo aynu ka guuleysanay cadowgeennii ku baanayay in doorashadaasi ay khalkhal gasho ama doorashadaasi aanay Soomaaliland ka suurtagelayn waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waxaan doonayaa inaan simga ugu mahadnaqo iyagana si weyn ugu mahadnaqo dadweynaha iyo waxgaradka deegaamada buuhoodle iyo cayn oo khasuusan ahayd dhulkii aan ololaha ka wadnay ama doorashadaan ka wadnay waxaan aad iyo aad ilaahay uga mahadnaqayaa sida wanaagsan ee aad noola shaqayseen sida wanaagsan ee aad hawsha uga qayb qaadateen shacbiga reer Sool waxaan ku hambalyeynayaa inay cududooda caqligooda iyo maxaa la yiraahdaayay tabartooda u isticmaaleen sidii ay u baajin lahaayeen u beenayn lahaayeen isku dayga cabdiwelina waxaan leeyahay saaxiib maamulkaaga ka adkow lana joog dalkaaga iyo dadkaaga waxaa in badan aad ku doodaan inaad Soomaali weyn doonaysaan haddana iyadii yacni waxaad doonaysaan inaad tiraahdaan haddana qayb annagiiba wax sii kala qoqobayna waa arrin aan isqaban marka waxaan ku leeyahay kala du labada qorshe aad isku wado isma qabtaane Somalilandna meel aad u soo martaa malaha bilaa عليك ku ekow deegaankaaga reer Sool iyo Sanaagna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Maxamed Jookar Ariel TV Burco.